بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkii meel walbo joogtiin waa idin salaamay caafimaad waara ilaahay noo bari maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkan la dhahayo balwada ama addiction ee dhahan luqadahan qalaad balwada oo qofka balwada oo aad noqotay wax ku soo zaa'iday ku batay mujtamaceena Soomaaliyeed ma ahan wax aan maanta dhihi karno fadhigaana lagu sheega ama meel yar wax looga sheega ama tababar lagu qabanaa oo looga hadli karo ama lagu soo koobi karo laakiin doorkeyga ama fariinteyda oo dhanka bulshada ku aadan haddii ay isdhaho maanta ka gaarsi ka samayso ama doorkaas gudo waxay tahay balwada ma ahan wax yar inta badan waxay u badan tahay dhalinyaradeena oo waliba ku bari iyaga ku tiirsan yahay wadanka ama wadankeena ama nolosha dambe oo Soomaalida ay leedahay balwada marka waxyaabaha fariinta ay gudbinayo waxay tahay ma ahan wax inta baroobeysid ama laba bari ee murug ku hayso asdaad balwad iskaga bi'i oo barina awood u leedahay ama xor u tahay inaad ka bixi kartid ma ahan wax dheedheel lagu galayo oo qofka iska dhaadhicin karo inkastoo wax lagu galayo marka koob ay tahay inuu qofka iska dhaadhiciyo maanta labadan bari kumood ama culeyska iskaga daji ama problemaadkan ku haysta iskaga daji bari waa ka bixi kartaa ama maanta farxad ziyaada ka hel ama fahan ziyaada ka hel casharka dhankiisa wax oo marka koob sababta lagu galayo inta badan waxay tahay wuxuu qofka aaminsan yahay inay tahay wax labadoo bari iska inta samaysid oo ku baashaashid oo hadhowni ka bixi kartid laakiin way ka baaxad weyn tahay balwad markii la dhaho ama waliba dhankan oo draagiska oo maandooriyaashan caadiga laga hadlo noocyada rabaan ha ahaado taabuu tubaako cirbad kaniini nooc raba ha ahaado waxa la isticmaalayo waxa waaye maskaxda si kala kaaga gaadayo way la qabsanay maskaxdii awood iskaga dhaaftid ama wa tanaasuli kartid aad u yaraani ilaa ina kaalmo ka heshid dadka qaar xataa hadda waxay la dhiban yihiin inay iyaga kaalmo haystaan ee awood la yihiin inay ka baxaan marka maanta fariinteedu ugu weyn dadka u diraa waxay tahay dadka aan wali bilaabin qatarteeda ma ahan qatar maanta qarsan kartid ama inta lagu soo koobi karo caafimaad ahaan waa caafimaadka waa ka dhace horumarka noloshaada waa ka dhace kartid markii koow maskaxdaada iska dhaadhicinaysa oo ahayd maanta waa bilaabi kartaa ka bacdina waa ka bixi kartaa ma ahan kartidaas wax run waa image qaldan ee maskaxda ku tusayso karti saxsan oo maanta ku dhaqaaqaysid ma aha iska bilaaw murugtan ku mood ka bacdi ka bax way ka baaxad weyn tahay aad uga baaxad weyn tahay balwad horta markii la dhahane sideedaba daraagiskan kaliya ma noqoto dabeecada qaarna balwaday noqdaan dadka qaar dabeecada qaldan ama waxyaabo qaldan waxay ka dhex raadinayaan farxad kadibna dabeecadii ama wixii maskaxdiya la qabsanayso balwada noqonayaan balwada lagu sheegay ma ahan waxyaabahan lacab ama lisduro laakiin dabeecadaha qaar ama dhaqamada qaar way noqdaan marka mid hadda oo aad uga dhibanahay bulshadeena Soomaaliyeed waxay tahay midaan la isticmaalayo balwadahan caadi loo cabayo ardaydeena Soomaaliyeed waxa laga yaabaa imtixaanaadka inay ku adkaadaan xanuunada anxiety walwalka la dhahayo in uu ku soo bato casharada inay fahmi waayaan security problem wadanka iska jiro oo amniga iska culus yahay marka dariiqaas ay soo marayaan qoraxdaas kuleelkeeda cabsidaas badan ee jidka ku soo marayaan inay u horseedo inay ka raadiyaan waxyaabahan qaldan farxadda marka dhibkii asoo jiro hadana qofka bini aadanka waxa fiican mustaqbalkiisa dambe soo fiirinayo ilaa inta oo iska xakameyn karno iska xakameey hadaa isku aragtid waxyaabo ziyaada ama inay ka tan badanaysa rabitaanka aad rabtid dhibaatooyin ama murugo dhaxdaada ka dareemaysid darteeda way la soo xiriiri kartaa diyaar u ahay mar walbana ardayda waa ka jecelaho way iga qiimo badan yihiin dadka kale aad iigu dhow yihiin inta badan aad xiriirina ardayda u badan marka ma aha waxaan wax dheedheel qatartooda iyo dhibkooda leeyihiin ilaahay naga wada ilaaliyo waxuna ka fahamteen arjina oo mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh